kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta sharafta iyo karaamada naga mudanow ku soo dhawaada barnaamijkeeni baro dalalka ku yaala Geeska Afrika. maanta waxa inoogu martiya barnaamijkeena miiskana inoo saaro Jamhuuriyadda Djibouti waxaa ku noolaa qarniyadii hore dadka Kashuutiga kadib waxaa bilaabay nolol xoolo dhaqato ah saameeyay agagaarka Djibouti. nolosha waxa ay jiideentay dadkii ku noolaa Djibouti waxa ay ku taallay xeebta Badda Cas. sanadii 1802 ayaa dowladda Faransiisku ka iibsatay dekedda Oboq Cuqaashi Danaakiilyada markii la furay ganacsiga Suez Canal. Oboq waxa ay noqotay saldhiggii Faransiiska ee shirkadaha ganacsigiisa Itoobiya kaga ganacsanayeen. sanadii 1896 dekedda Djibouti ayaa u beddeshay Oboq oo noqotay magaalo madaxdii. Djibouti waxaa horumar ka sameeyay Faransiis si ay u noqoto dekedda ugu muhiimsan Badda Cas. sanadii 1946 Djibouti waxa ay noqotay maxmiyadii Faransiiska ka tirsan. sanadii 1976 Soomaalida Djibouti waxay codsadeen madax bannaani. yeeshee dadkii Djibouti ku noolaa ayaa badankoodu diiday madax bannaan oo rabay inuu Faransiisku la sii joogo. markaas ayaa bilaabmay halgankii raadintii maxmiyadii. sanadii 1977 ayaa Djibouti la siiyay madax bannaanidii ay doonaysay. sanadkii 1992 Djibouti waxaa ka bilaabmay dagaalo u dhexeeya Canfarta iyo Ciisaha. jabhaddii Canfarta ayaa dhul badan oo qabsatay oo ku dhawaaqday inay madaxweynaha la afgembiyo. yeeshee Faransiiska ayaa caawiyay madaxweynihii si uu xukunka Djibouti u sii hayo. sanadii 1994 dowladda Djibouti waxay heshiis la saxiixatay Canfarta oo ogolaatay xuquuqdooda. sanadii 1999 madaxweyne Xasan Guuled Abdidoon waxa uu ka hadhay doorashadii madaxweynihii markii shanaad. isla sanadkaas waxaa doorashada ku guuleystay Ismaaciil Cumar Geelle oo noqday madaxweynihii cusub. waqti yar ayaa uu siiyay wax ka qabadkii dhibaatooyinkii haystay Djibouti dhaqaale iyo siyaasadeed iyadoo Canfartu kala noqotay kalsoonidii. dowladda Djibouti waa dowlad madax bannaan leedahay awood u sareysa sida fulinta magaca wasiirka koowaad 65 xubnood oo golaha wakiilada xusbiyada iyo sharci dejinta. maanta iyo Djibouti waa maxay nidaamka maanta Djibouti ka jira? awoodda dowladda waxaa hoos timaada madaxweynaha Soomaaliya iyo wasiirka koowaad oo Canfar ah. golaha wasiirada waxay qaybsadaan Soomaalida iyo Canfarta. yeeshee madaxa dhaqaalaha dowladda waxa u badan Ciise Soomaali. arrintaas Canfarta raalli kama aha. Djibouti waxaa lagu tiriyaa dowladaha ay ka jirto dadka xukunka ku dhegan. Ismaaciil Cumar Geelle ayaa 20 sanadood u dambeeyay hayay xukunka dowladda Djibouti taas oo lagu eedeeyay inuu xukunka hayo markastana uu sameeyo isdabamarin iyo musuqmaasuq ku saabsan dhinaca doorashooyinka. madaxweynaha Djibouti ayaa ah layidhaahdo Ismaaciil Cumar Geelle oo tan iyo 1990 xilka hayay. markaas uu kala wareegay Guuled Abdidoon oo ahaa madaxweynihii Djibouti ayaa waxaa la sheegay in dadkeeda lagu qiyaasay 400,000 waana wadamada ugu dadka reer Afrika iyo caalamkaba. Djibouti ayaa waxa ay ku taallaa Badda Cas waxaana ku taalla dekedda ugu weyn ee bariga Afrika taas oo shirkadda DP World samaysay. inkastoo isku dhac yimi maxkamadda la islaaday, Djibouti waxaa lagu xukumay inay bixiso dhaqaalihii kaga baxay DP World. Djibouti waxaa lagu leeyahay dayn $6 bilyan taas oo haddii loo qaybiyo dadkeeda ugu soo hagaagaysa 3,000 oo qof calaa qofba. yeeshee Djibouti waxa ay martigelisay saldhigyaal aad u waaweyn oo militari sida Japan iyo China iyo Mareykan. Djibouti waxaa ku loolamaya quwado waaweyn markastana waxaa laga cabsi qabaa in saldhigyadaasi isku dhici karaan oo qaarkood iskuba jiraanba wax ka yar 12 amaba 8 kiiloomitirba. Djibouti iyo maanta oo doorasho ku soo aadan tahay